السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. kusoo dhawaada podcastgeeni alqalam podcast. magacaygu waa Dr. Fawzi Cali Maxamed, Dr. Fawzi Qulaam. insha allahu tacaala axbaabi, maanta waxaynu ka hadli doonaa ama aan isdul taagi doonaa kayfa nuqabilu shahru ramadaan, sideen uqaabili lahayn bisha ramadaan. bishan horta waa bishii maylida nafaheena, waa bishii aan dhaqdhaqaynay nafaheena, waa bishii aan dhaqaynay ruuxdeena, waa bishii aan dhaqaynay ruuxdeena iyo jirkeena, waa bishii aanu dhaqaynay wax walba oo ku saabsan nafteena, waa bishii dib u cusbaysiinta, waa bishii caadooyinka wanaagsan aan samaysanaynay, waa bishii aan restart u diraynay ama aan refresh u diraynay nafteena, waa bishii ay noqonaynay qof cusub. waayo bil walba ramadaan ilaahay wuxuuna siinayaa furas qaali ah. waa bishii uu ilaahay gaarsiiyo cidda uu doono keliya. ilaahay subxaanahu watacaala cid walba bishan ma gaarsiiyo, ilaahay naga yeelo kuwii uu gaarsiiyo. nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa saxaabtiisa waxay ku ducaysan jireen 6 bilood inuu ilaahay gaarsiiyo. allaahuma ballignaa ramadaan laa faaqidiina walaa mafquudi. 6 bilood markay baxdan 6 bilood ku xigtana waxay dhihi jireen ilaahay naga aqbal ramadaan. markaa bishani bil maaha fudud maaha, waa bil fursad qaali ah ay tahay weeyaan walaalayaal. insha allahu tacaala markaas sideen u qaabilnaa bishan waxaan ku qaabilaynaa an nastaqbil biniyati saalixa, inaan ku qaabilno niyad wanaagsan oo saalixa. sidoo kale bishan waa inaan sameyno alisticaanatu cala allahi calaa buluuqi ramadaan, inaan ilaahay mar kasta weydiisano inuu ilaahayna gaarsiiyo. maalina xitaa gaarsan tahay qofkuu ilaahay qormayana qof kale ma gaaray. qof waxaa gaaraya uu ilaahay fursad siiyey, markastana waana tirahda ilaahayna gaarsii. allahuma ballignaa ramadaan, inaad ilaahay ku isticaanaysatid oo tirahdid ilaahayow igu kaalme inaan gaadho. sidoo kale waxaan ku qaabili karnaa atasaamax walcaf, in aan dadka saamaxno, dhexdeen isa saamaxno, aan isa cafino. wax walba inaga dhacay. qof haddii aad wax umusku haysiin caloosha, haddii qof wax kuugu hayo inaad iska saamaxdaa. waa inay ku soo gasho adigoo qof wax kaa tabanaya, qof kaa cabanaya, qof kaa murugsan inuuna jirin adduunka, waa in ay ku soo gasho. waxaynu axbaabi sidoo kale waxaynu naxnu nastaqbil atawbatu nasuuxati walistigfaar, inaan toobad keenno dunuub haday jirtay, haddii ay dembiye jireen, wax walba jiray in aan ka toobad keenno. ilaahay toobad waa aqbalaa. ilaahay wuxuu yidhi wa aniibuu ilaa rabbikum, waa ilaahayna u laabta. ilaahay sidoo kale wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillaah. ilaahay toobad waa aqbalaa. ilaahay inagama daalayo, toobadan ilaahay kama daalayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam markay asxaabtu ay yidhaahdeen nebiyow haddii aan dambaabo, saxaabi ka mid ah haddii aan dambaabo, mar walbaan dambaabo, dembi sameeyo, oon ilaahay u toobad keeno, oon dambaabo, oon soo noqdo, oon dambaabo, oon soo noqdo, ilaahay miga aqbalayaa? haa buu ku yidhi. ilaahay war ilaa aad ka daashaan idinku isagoo idinka daali maayo. allah barka war raxmadda ilaahay, naxariistiisa. sidoo kale waxaan ku qaabili karnaa inaan ku qaabilnay tahay atacaawun waalid wannaas, inaan caawino waalidkeena si walba ha noqoto, inaan ku caawino nolosheenii, inaan ka farxino, inaan caawino, inaan wax siino, inaan waalidku wallaahi laxbaabi mowqif qof waalid maanta uu joogo nicmah waa haystaa. wallaahi albaabadii jannada ayaa u furan. dadka kalena waa inaan caawino, dadkii baahan. sidoo kale waxaan ku qaabili karnaa musaaxibatu naas, dadka inagoo la saaxiibno, soo dhaweyna. bishan sidoo kale waa inaan ku qaabilnaa inaan badino shahr soom wa salaa, inaan salaada badino, inaan badino rawaatibta, inaan badino insha allahu tacaala sunnayaasha, inaan badino ayaa loo baahan yahay. sidoo kale waa inaan ducada allahuma ahilna calayhi ramadaan, waa inaan markasta ilaahayna gaarsiina dhahno. sidoo kale barnaamijka noloshaadana dib u habaysid. bishani waa bil barnaamij cusub lagaga baahan yahay, waa bil jadwal cusub inaad samaysid lagaga baahan yahay.
sidoo kale silatu raxim waa inaad samaysid, waa inaad raximka xiriirisid, qaraabada, caa'ilada, faamilka waa inaad xiriirisid, waa inaad samaysid istibdaal acmaal الاجتماع السعادة. يعني rasuulka عليه الصلاة والسلام wuxuu yihi axabu الnaasu ila Allahi anfacahum, dadka ilaahay wuxuu ku jecel dadka wax anfaco, waa inaad dadka caawisid, waa inaad ijtimaac noqotid, qof bulshada u shaqeeya, bulshada ka farxiya, bulshada caawiya, bulshada u gargaara, waa inaad noqotid. salaatu taraawiix, waa inaad salaad taraawiix ku dadaashid, ama tahajud kii noqotaba waa inaad ku dadaashid. sidoo kale bishani waa bishii qur'aanka, waa inaad qur'aan akhriskaagu uu aad u bato. bishii tahajudka weeyaan, waa bishii dulqaadka, waa bishii sadaqada, waa bishii maqfirada istikfaarta, waa bishii leylatu qadarka ku jiray habeenkii, yani khayr min alfi shahri baa ku jiray bishan. marka walaal, laakiin inagu maca alasaf ashadiid waxaan ku bedelnay bishii hurdada, bishii hadalka, bishii saamaleylka, bishii daawashada film aflaamta, bishii hurdada, bishii ciyaarta, bishii cunid oo cab ah ayaan bedelnay. wallaahi alcadiim bishani haddii aan garanayna faa'iidadeeda waxaan ka dhigi lahayn bishii qur'aanka, bishii cibaadada, bishii shaqada, bishii casharada, bishii tarbiyeenta nafta, waxaasoo dhan baan ka dhigi lahayn. laakiin kamaynu dhignayn bishii faakahaysiga iyo inaan yani inagii cunto iyo dib u bilowno. markaa insha allahu tacaala subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayh. intaasaan kusoo gabagabanayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.